abwaan xasan daahir weersame oo maanta telefishinka Home Cable kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in loo hanjabay gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Maxamed Axmed Bakaal Ciro isagoo arintaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin aniga Maxamed Yar walaalkayga yar ma garanays waan heesa badan oo la yaqaan waan nasabo goba waan fanaan aad u jecelahay horta cid Hargeysa ka sheegin kartaa ma jirto ninka Hargeysa isagu ka sheegtay isaga reer Hargeysa ahayn ninka Soomaaliland ka sheegtay isaga reer Soomaaliland ahayn Maxamed halkaas ku dhashay halkaas ku koray halkaas ku barbaaray halkaas aan ku dhalay halkaas aan ku dhaqmay waligiina halkaas u joogaya nin halkan ka yeelan kara ma jirayo ninka sidaa ku yiri hadii Ilaahay isaga uu nin ka dhigo xiniya walka ka sheeganayo u leeyahay intuu dadka hor yimaada ka sheegto balwaqaas ma soo la arki doona waxa kale oo ku sheegaya nin sidaa xagtin u gaarsiin karaan ma jiro xagtin nin sidaa u gaarsiin kara iyaduna ma jiro laakiin si qof aqli laawa ah oo isaga ay la noqotay muxuu ahaayay inuu qof reer Soomaaliland ku yiraahdo Soomaaliland ka bax ama Soomaaliland matiid ku yiraahdo dawaanin aan aqli badan lahayn bay la tahay waxaasuna wax inaad u dhaqanayno leenahay iyo wax milgaha dadka goobta meel kaga jira ma aha fanaaniintuna waa dad birmageyda ah in la dhowraabay mudan yihiin waayo waa dad aan ku milayn waxyaabaha bini'aadamku isku haystaan intooda badan waa niman dadka maaweeliyo oo madadaaliya oo aynaan waliba lacagna ku siin ixtiraam inay naga helaan ba fiican inay ixtiraam hadayna wax kala tarayn inaynu ixtiraamnaaba fiican oo aynu kaalinta ay bulshada ugu jiraan aynu ku qadarino marka waa ayo kooxahan la qarinayo isuguna uu qarinayo idinku aad qarinaysaan hanjabaya le Hargeysa ayaa la wada joogaa waa ayo kooxahan anigu doorta walaal waxaan qarinaya ma jirto telefoon weeye wax loogu soo hanjabay isaguna dadka oo dhan qof kuma wada yaqaano inama yeerar ba haday halka inta ugu soo daataan wax miyo wajigoodii wada garan kara qofkii cid alle cid ay yihiin hadaanu isagiiba garanayn inaguna ma garanayno laakiin dhacdadii waa dhacday kolkaas dhacdada dabagalkeedii dawladda leh dawladdu waxay leedahay CID bay leedahay ciidan nabadgeliye leedahay wadanka gudihiisa wixii ka dhacay iyada mas'uulka iyada xil ka saaran yahay iyada inay baaritaankii sameysay tahay inuu weersamo baaritaanka sameeyo ma haday telefoon uu tahay meena haboonayn CID-da iyo hay'adaha ku shaqo loo gudbiyo telefoonkaas una ay daba galaan oo arinku adigu aad weyneynaysan halka warbaahinka hadal lahaydeen dawladda horta qofka marka wax la gaarsiiyo ee loo soo hanjabo muxuu ay gurigiisina lagu doonto sida aan maqlay anigu hadii gurigiisi qofkii lagu doontay telefonkana looga soo hanjabay dabcan inuu arinta concern ka noqdo oo warbaahinta galiyada qasab ay noqonaysaa hadii laakiin cid lagu dilo ka waran dhowto la arintu serious tahay halka waxba lama weyneynayo adigan ku dhiibay adigu wariya tahay Soomaa xirfadaada wariyanimo adigoo sideeda u gudanaya hadii lagu waxyeelay ka war miyada muslimayd adan ku dhiibay miyada muslimayd hayamaya mada musliman bay la tahay isaguna dadku buu la mid yahay kolka wax la weyneynaya ma jiree marka imika qofkii dib la gaarsiiyay waliba la yiraahdo waxbuu weyneynaya isagiiba hadana la sii caaya tan kalaaba cayo anu ka daran baabana aaminsanayde wax laakiin soo weyneynaya ma jirto kolka waa inaynu ku ixtiraamno qofka dareenkiisa waxa uu ka cabanayna in wax laga qabto hadana waxba laga qaban karin in ciida laga daayay taasaas noqonaysaa ma malaynaysaa abwaan waxa jira dhinacyo kala duwan oo hadlaya oo abwaaninta iyo fanaaniinta iyo maalmihii la soo dhaafay guud ahaanba Soomaalida ma malaynaysaa arrimahan arinta ku salaysan Soomaalida wax kala dahay dambeeyaan horta halkan aynu joognaa imika inagu halkan ka hadlana halkan yaa kala hadlay miyay jirtaa cid kala hadashada adigu iga xogaalsantay cid kala hadashad adigu iga xogaalsantay miyay jirtaa halkani Hargeysa gudaheeda ilaa ma aha cid kala hadlaysi cid ay inay toona jiraan laakiin Soomaalida kale arrimahaas waa arrimo siyaasadeed walaal wixii siyaasadina waa siyaasad wixii fanina waa fan wariyaan fanka la siyaasadaynin Xasan Galayd wararka Home Cable Hargeysa